calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid kusoo dhawaada warka habeenimo ee calansida media fadlan haddaan ugu cusub tahay subscribe saar gmailka furada wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo sabti soo galayso qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo berri muddo kororsi 2 sano ah u sameyn doona madaxweyne Farmaajo isla markaasina fariin u soo diray golaha shacabka baarlamaanka ayaguna sheegay berri 9 subaxnimo waa in la isugu yimaada xarunta baarlamaanka ee Villa Hargeysa golaha shacabka ayaa iclaamiyay kulan gaar ah oo soo codsaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu jiro iyadoo lagu soo beegay xilli uusan soo xirmin shirkii Dhuusamareeb xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa loo diray qoraal ku saabsan in berrito oo sabti ah uu jiro kulan gaar ah uu soo codsaday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaasina looga hadlayo xaaladda guud ee dalka iyo doorashooyinka qaranka madaxweyne Farmaajo ayaa ka hor safarkiisa Dhuusamareeb iclaamiyay in 5 bisha uu horgeyn doono labada gole ee baarlamaanka wixii uu ka soo qaado Dhuusamareeb balse wuxuu baaqday kadib markii ay beesha caalamka la hadleen gudoomiye Maxamed Mursal una sheegeen Farmaajo in aanu ka soo tagi karin Dhuusamareeb ilaa xal loo helo arrimaha doorashooyinka qaranka sida ay ila wareejo ka tirsan Villa Soomaaliya u xaqiijiyeen calansida media waxa lagu wadaa in madaxweyne Farmaajo uu aroornimada berri ah ka soo dhoofo magaalada Dhuusamareeb si uu berri uga qayb galo kulanka baarlamaanka ee loogu kordhinayo muddo xileedkiisa 2 sano sida ay calansida media hore idinku soo gudbisay lama oga sida ay uga falcelin doonaan musharaxiinta iyo maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland mar hadii uu muddo kororsi sameeysto madaxweyne Farmaajo si kastaba ha ahaatee hadii madaxweyne Farmaajo arrintaas oo ku dhaqaaqo dalka waxa uu sii galaya qalalaasa siyaasadeed oo xoogan isla markaasina waxa macquul ah in uu dalka ka dhaco dagaal sokeeye isla dhinaca kale war iminka soo dhacay aqalka sare oo sheegay in uusan jirin kulan wadajir ah oo Farmaajo ka codsaday baarlamaanka hase ahaatee fariinta uu madaxweyne Farmaajo soo diray kaliya waxa uu ka codsaday gudoomiye Mursal halka iminka aqalka sare ay soo hadleen iyadoo golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu soo saaray qoraal xildhibaanada lagu wargelinayo in berri uu jiro kulan gaar ah oo xildhibaanada ay yeelan doonaan kadibna oo hor imaan doona madaxweyne Farmaajo ayaa waxa arintaasi war ka soo saaray gudoomiyaha aqalka sare isla markaasina sheegay in wax fariin ah aysan soo gaarin dhankooda aqalka sare qoraal ka soo baxay aqalka sare dawladda federaalka in uusan jirin kulan wadajir ah oo madaxweynuhu ka soo codsaday gudoomiyaha golaha aqalka sare si waafaqsan qodobka 57 ee dastuurka ku meel gaarka ah iyo qodobka 59 ee xeer hoosaadka golaha aqalka sare dhammaan senatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxa lagu wargelinayaa in uusan jirin kulan wadajir ah oo madaxweynuhu ka soo codsaday gudoomiyaha golaha aqalka sare si waafaqsan qodobka 57 ee dastuurka ku meel gaarka ah iyo qodobka 59 ee xeer hoosaadka golaha sidaas darteed ma jiro kulan wadajir ah oo ay xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya u balansan yihiin berrito oo taariikhdu tahay 6 Febraayo 2021 ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay aqalka sare si kastaba ha ahaatee waxa macquul ah madaxweyne Farmaajo senatarada taageersan inay aadaan golaha shacabka isla markaasina halkaasi la yiraahdo waxa fadhiya golaha aqalka sare iyo baarlamaanka Soomaaliya sidaasina gacantaag oo ku kororsado xilkiisa dhinaca kale wasiir Faqi oo war ka soo saaray weerarkii Dhuusamareeb wasiirka amniga ee maamulka Galmudug Axmed Macallin Faqi ayaa markii u horeysay faahfaahin dheeriya ka bixiyay weerarkii ay xalay dagaalyahano ka tirsan al-shabaab ay ku soo qaadeen magaalada Dhuusamareeb weerarkaani oo ka dhacay duleedka magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ku guuleysteen soo qabashada madaxii qaybta qaraxyada Galmudug oo qaabilsanaa shabaabkaasi oo lagu magacaabo Cabdinuur Daad Carays sidoo kale waxa uu sheegay in dagaalkii xalay ay ciidamada kaga qabsadeen maleeshiyaadka weerarka soo qaaday qori hoobiye ah gaari ay wateen kooxda weerarka soo qaaday qoryo fudud oo ay ku jiraan 2 BKM ayuu yiri wasiir Faqi ayaa xaqiijiyay in weerarkaasi la fashiliyay isla markaasina dagaalyahanadii ka tirsanaa shabaab ee fulinayay ay carareen 8 meyd ah kadib markii ciidamada dawladda ay uga adkaadeen weerarkii ay rabeen inay ku qalqalgeliyaan ammaanka Dhuusamareeb ugu dambeyntii waxa ugu baaqay dagaalyahanada qaybta ka ah shabaab ee ku sugan deegaanada maamulka Galmudug inay isku soo dhiibaan ciidamada dawladda ka hor inta aysan marin wadada kuwa weerarka fuliyay ay mareen waxay ahayd xalay markii labaad oo ay dagaalyahanada al-shabaab qalqalgeliyaan ammaanka magaalada Dhuusamareeb halkaasi uu ka socday shirka wada tashiga ah oo u dhaxeeya dawladda federaalka dawladaha xubnaha ka ah iyo gobolka Banaadir si kastaba ha ahaatee ururka al-shabaab ayaa halkaasi jab xoogan lagu gaarsiiyay isla markaasina lama oga inay ayagana soo weerar celi doonaan isla markaasina magaalada Dhuusamareeb ee mar kale qalqalgelin doonaan fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media
xog xasaasiya war degdeg ah shirka dhuusamareeb oo lagu kala tagay madaxweyne axmed madoobe oo ka istaagay shirkaasi isla markaasina shir jaraa'id oo degdeg ah qabanaya war hadda naga soo gaaray ayaa sheegaya in lagu kala booday shirka dhuusamareeb ee u socday madaxda dowladda federaalk Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka xog aan shirkaasi ka helnay ayaa sheegaysa in qodobka ugu weyn ee la isku mari waayay uu yahay arinta gobolka Gedo kadib markii madaxweyne Farmaajo uu ka tanaasuli waayay in maamulka doorashada gobolkaasi loo daayo Axmed Madoobe isla markaasina maamulka Jubbaland si toos u maamulaha hase ahaatee madaxweyne Farmaajo ayaa gibi ahaanba arintaasi ku madax adeegay Axmed Madoobe ayaa meesha isaga tagay Axmed Madoobe ayaa la filayaa in goordhow uu qabto shir jaraa'id oo uga faahfaahinayo sida ay wax u dhaceen iyo waxa la isku fahmi waayay sida lagu sheegay qoraal kooban oo ka soo baxay madaxtooyada Jubbaland ayaa qoraalka kooban oo ay soo saartay ku tiri madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa goordhow warbaahinta uga warbixin doono marxaladda uu shirku marayo iyo sababta ilaa hadda xal looga gaari lahayahay arinta gobolka Gedo taas oo sababtay in heshiis rasmi ah ka soo bixi waayo shirka wada tashiga arrimaha doorashooyinka ay ka socda Dhuusamareeb dhinaca kale madaxweyne Farmaajo ayaa la filayaa inuu ka soo tago magaalada Dhuusamareeb kuna soo laabto Muqdisho isaga oo ballansaday kulan uu berri kula hadli doono xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk Soomaaliya isla markaasina warar ayaa sheegaya in halkaasi muddo kororsi oo sameyn doono isla dhinaca kale war iminka soo dhacay ayaa sheegaya in beesha caalamka oo isku dayaysa inay baajiso shirka jaraa'id uu qabanayo Axmed Madoobe isla markaasina ay diidan tahay beesha caalamka in shirkaasi uu fashilmo wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaraya Dhuusamareeb ayaa sheegaya in beesha caalamka ay bilowday dadaalo degdeg ah oo loogu baajinayo shirka jaraa'id uu qabanayo Axmed Madoobe uu kaga hadli rabo in shirka lagu kala booday madaxtooyada Jubbaland ayaa qoraal ay soo saartay hal saac ka hor ku tiri madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa warbaahinta uga warbixin doono marxaladda uu shirka marayo iyo qaabka fashilka ku yimid go'aanka Axmed Madoobe oo isugu yeeray warbaahinta ayaa yimid kadib markii shirka lagu kala booday ayada oo qodobka ugu weyn ee la isku mari waayay isla markaasina shirka u yahay arrinka gobolka Gedo kadib markii madaxweyne Farmaajo uu ka tanaasuli waayay in maamulka doorashada gobolkaasi loo daayo Axmed Madoobe sidaasina uu ku maamulo si kastaba ha ahaatee waxaa hadda socdo dadaalo xooggan oo ay wadaan madaxweyne goboleedyada kale iyo wakiilada beesha caalamka si shirkaasi loo badbaadiyo waxaa jira faham guud oo ah in haddii Axmed Madoobe uu la hadlo warbaahinta ay xaaladda si toos ay faraha ugu sii bixi doonto isla markaasina aysan jiri doonin hab shirka lagu badbaadiyo laguna soo kala tago taas oo laga hortagayo in ay dhacdo si kastaba ha ahaatee wararkayna xig ayaan kusoo tabin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee shirkaasi fadlan nala jooga subscribe saar calansida media dhinaca kale dowladda federaalk Soomaaliya oo deeq raashin ay gaarsiisay degmada Dinsor oo in muddo ay xanibneed wasiirka xanaanada xoolaha dirta iyo daaqa ay xukuumadda federaalk Soomaaliya Xuseen Maxamed Sheekh Xuseen iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa safar kooban ujeedkiisu ahaa garab istaaga dadka danyarta ah ku tagay degmada Dinsor ee gobolkaasi Bay wasiir Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen ayaa 3 diyaaradood oo waday deeq raashin ah oo ka kooban 20 tan isla markaasina ay si wadajir ah ugu deeqeen wasiirka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxayna gaarsiiyeen dadka shacabka ah ee ku dhibaataysan degmada Dinsor ee gobolka Bay oo ay go'doomiyeen kooxda argagixisada ee Al-Shabaab wasiir Xuseen Maxamuud Sheekh oo dadka danyarta gaarsiiyay raashin isugu jira bariis sokor bur iyo saliid ayaa ku baaqay in la garab istaago dadka Dinsor oo uu sheegay inay u baahan yihiin gargaar dhab ah maadaama ay ka jiraan xaalad bini'aadanimo dhinaca kale wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliya mudane Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen ayaa kulan la qaatay saraakiisha AMISOM iyo ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed kuwaas oo dowladda Soomaaliya ka codsaday in la qarameeyo oo ay xuquuq yeeshaan wasiirka ayaana dhankiisa ciidamada ku booriyay dadaalada nafhurinimada leh oo ay ku difaacayaan dadka shacabkaasi halkaasi degan calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid